waxaa maanta halkan fadhida guddidii horumarinta dhaqanka iyo anshaxa suuban ee reer Soomaaliland oo dhan ka kooban caasimadii Hargeysa aan joognaa 3 qodob ayuunbaa nuxurka guddidan asaaskeedu uu ku soo ururaya waa ka koowaade dad islaam baynu nahay ilaahayna wuxuu yiri wal mu'miniina wal mu'minaati ba'duhum awliyaa ba'dan ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar amarkii ilaahay baynu fulinaynaa dad islaam mar hadaynu nahay taasi waa aayadda quraanka kariimka ahayd talabaad waxa weeye bahdii dhaqanka hadii aanu nahay mas'uuliyad dhaqan aan qaadnay ilaahayna nagala xisaabtami doono wax kasta oo ummadda diinteeda iyo sharafteeda iyo karaamadeeda iyo nafteena iyo maalkeennaba wax u dhimi kara ama dhaawac ku ah sida mukhadaraadka oo ay ugu horeeyaan khamriga iyo xashishadu inaan ummadda uga digno iyo afcaasha kale aan wanaagsanayn guud ahaan dalka ka socotaba inaan uga dignaa taasina waa waajibna saaran oo xilkii dhaqan ee aanu haynay baan gudanayna waa ta saddexaad sukaya keentay ama sanan isu xilqaano sababta uu yahay waxa weeye ciidamadeena ammaanku iyo mu'assasaadka inoo dhisan oo dhan xukuumad iyo wasaaradda arrimaha gudaheed iyo ciidamada ammaanka iyo barsaabadaba iyaga oo dadaalaya runtii oo ciidanka booliska mas'uuliyad culus uu hayo haddana guri walba ma gaari karo goob walbana gacanta kuma soo dhigi qaban karo marka bulshada qaybaheedii kala gedisnaa inaanu ugu baaqno inaynu la shaqeyno ciidamadii ammaanka oo gacan buuxda aynu ku siino gudashada waajibaadkoodaasi ay wax kaga qabanayaan la dagaalanka mukhadaraadka iyo dhacdooyinkaasi foosha xuntaasina waa qodobka saddexaad ee iyaguna isu kaayo keentay waxaan markaa ka damqannay oo la idiin sheegayn oo qof waliba og yahay awal aynu kuba muranee laga hadlayaan ku muranee qaadka iyo buuriga iyo waxyaabaha halkaas baynu ku murmaynay maanta waxay nagu soo biiray anigoo u qaba inay hooyo quri wada dhashay balwadda oo isku bahyiin hadduu qaad yahay hadduu buuri yahay hadduu xashiishad yahay qabri yahay anigoo isku ka mid kasta waa dilaa mid kasta maalku wax yeelaa mid kasta naftu wax yeelaa mid kasta cibrigu dadajiyaa mid kasta dhaqanka iyo akhlaaqda wanaagsan inuu doodaynaa buu dilaa waxa ka sii daray maanta xashiishada tii la isku mudayay oo inuu Yurub iyo reer galbeedku ku maqli jiray iyo tii la laabanayay iyo tii la ursanayay iyo tii daanka la dhigayay iyo khamriga noocyadiisii oo kala dhinac walba leh ayaa walaalayaal ku soo baahay dalkeena waxa weeye dalkeena yani 700 kiiloomitir xuduudka furan ee ogtihiin ka soo galaya ayadoo u mahadnaqayo booliska iyo dawladda dhamaanteedba inay ku dadaaleen oo waxa weeyaan wax weyn ka qabteen haddana waxa dadweynaha halkan baaqu ka diraya inaanay waxba qaban karin kalidood oo ay Soomaalidu ku mahmaado farquri fool ma dhaqdo waxa leeyahay dadka iibinaya erayar u diraya waxa leeyahay dadkaaga haddaad xasuuqdo xashiishad haddaad u keento barbaarta haddaad xumayso muxuu taray xoogsigaagu diinteennan islaamka ee xaniifkii waxay ku salaysan tahay 5 qodob 5 qodob waxa weeye diinta nafta maalka cirdiga iyo aqliga sida ay u sheegeen salaadiinta iga horeysay duulimaad baa layna lagu yahay qasbi fikri wax la yiraahdo ayaa layna lagu soo qaaday inaguna wali umaynaan fiirsan halka layna laga dagaalamayo dagaalkaas wuxuu naga socdaa diintii buu naga socdaa aqligii buu naga socdaa cirdigii buu naga socdaa maalkii buu naga socdaa naftii buu naga socdaa caruurteena wata meel walba ku baabaaysa dhaqan xumada la sheegayana de maanta laga sheekeyn karo afaafkay guri walba ka soo gashay walaalayaal waxa weeye khuluqa quraanka hadaynu qaadano diinteena ku adkaano waxa soo dil weynu iska tiirinaynaa dawladda hadaad maqasho waa dadka dawladdaasi waxa weeye waxay ka kooban tahay xuduudkeena ka ugu bareela ka ugu kale nin walba waa dawlad oo ummadii baynu nahay dawladda ahayd inaynu feejignaano oo salaadiintu ay u sheegeen guri walba guriga ku xiga gurigiisa kolku hagaajiyo ka ku xigana uu ka warhayo ka soo horjeedo ka hore sababtoo ah 40 baa dhinac walba lagu qabanaya maalinta qiyaamaha 40 ka wanaagooga iyo xumaan ka reebistooda aakhira waa lagu weydiinaya kolka nin walba gurigaaga iyo 40 ka afarta jiha mid walba ka xiga inaad ku dadaasho oo deegaan ahaan oo rijin ahaan oo isteed ahaan oo wadan ahaan nin walba meeshiisa ka saxmo ayaa muhiima saasawgeed anu kelmadeyda waxaan leeyahay oo aan guud ahaan dawladda iyo shacabkaba aan farayna war wax kasto dhaqankiina iyo akhlaaqdiina iyo diintiina halis gelinaya in laga meel looga soo wada jeestay waa waajib in saaran weeyaan hadday tahay xarumo
waxa weeyaan aan fiicin la waxa fartu ku godan tahay oo la leeyahay dhaqan xuma ka socota waxa weeyada in il gaara lagu eego hadday tahay shakhsiyaad dhaqan xun wada in si gaara loola socdo hadday tahay hay'ado iyo wax la mid ah intaba runtii waxaan soo jeedinaynaa dawlad iyo shacabba wax kastoo dhaqankeena iyo akhlaaqdeena xumaynaya inaan si gaara ula socono